السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعاني wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Cabdi Qeyr soo dhawaada muuqaalkan wuxuu bilaaw u yahay muuqaalo taxanaha kuwa aan ku soo qaadan doono konton iyo shan talo oo aas u ah guusha nolosha halkan waxaan ku soo gudbin doonaa shan qodob oo ka mid ah konton iyo shan talo oo aas ku ah guusha nolosha muuqaalka u guda galin fadlan hadaan ugu cusub tahay janaalka subscribe inoo saar muuqaalka inoo la garay share waa inoo muhiim la wadaag saaxiibadaada qaybta hoose commentiga inoo reeb wixii fikir aad haydid mahadsanidin number 1 guusha shuruucdaada dada guushu waxay ku bilaabataa adiga oo si gaar ah u qeexaya sida guushaadu ay u eg tahay macnaha sida aad doonaysid inaad u guuleysatid iyo wadada aad rabtid inaad u martid ayaa loo baahan yahay inaad qeexid tusaale ahaan waxaad tahay arday waxaad doonaysaa inaad ku guuleysatid imtixaanka soo socda ee sanadkan waxaad u baahan tahay inaad dadaashid waxaad u baahan tahay inaad akhrisid wax badan maadooyinka iskuulkana aad xoogga saartid ama kuwa jaamacadda si fiicanna waa inaad iskaga diyaarisaa casharada inta badanna waa inaad xoogga saartaa lambar 2 riyo weyn si aad u gaarto guul weyn oo nolosha waa inaad ku riyootaa wax weyn riyadaadu waa inay kugu dhiirigelisaa inaad qaaddo tallaabada lagama maarmaanka ah si aad u gaarto riyadaada intee ayay la eg tahay riyadaadu waa maxay waxa ugu weyn ee aad rabto inaad gaarto noloshaada nin walba ama qof walba waxbuu ku riyoonayaa qof walba wuxuu jecel yahay mustaqbalka inuu noqdo haddaba adigu maxaad jeceshahay inaad noqotid waxbaad ku haminaysaa waxbaad ku riyoonaysaa naftaadu waxbay jeceshahay waxbaad doonaysaa waxbaad u baahan tahay haddaba shaygaas muxuu yahay hamigaagu waa inuu noqdaa mid sarreeya hadafka riyadaada waa inaad u abuurto nolol wanaagsan naftaada iyo kuwa kale bal qiyaas fursadaha aan dhammaadka lahayn noloshaada shaqadaada qoyskaaga iyo dhammaan adduunkaba riyada weyni waa hami la taaban karo number 3 tallaabo qaadista waxqabadku waa tallaabada ugu muhiimsan ee loo qaado dhanka guusha markaad tallaabo qaado waxbaad ka qabataa noloshaada xaqiiqada ugu muhiimsan ayaa ah riyooyinka himilooyinka iyo yoolalka waxa kaliya lagu gaaro inay tahay in wax la qabto qaadashada tallaabada ugu horeysa ee noloshaada waxa ugu muhiimsan waa inaad wax qabato mar walba oo aad wax qabatid waxaad noqon doontaa qof horumar u sameeya dhanka nolosha tusaale ahaan gurigaaga ayaa isku dhex yaacsan maanta waxaad u baahan tahay inaad gurigaaga nadiifisid haddii aadan hadda qaban hawshaas oodan qolkaaga hadda hagaagsan oodan guriga inta hagaagsatood qolkaaga isku dubaridato aadan dhag inta ka dhigato aadan ku seexan qolkaaga nadiif oo hagaagsan ama aadan ka taganin waxaad ogaataa in markaad soo laabataa dhihi doonto hadhow ayaa hagaajin doonaa mar walba oo aad waqtiga hawsha aad qabanayso waqti kusii dartidna noloshaada dib u dhac ayaa kugu iman doona waxqabadka lagu sheegaana waa tillaabadaada oo hore aad u qaadid mar walba tillaabada hore aad u qaadidna cilmi caqli iyo fikir cusub ayaad la kulmi doontaa wax walbana waxay ku noqon doonaan wax fudud hawsha markaa guda gashid ayay noqon doontaa mid fudud banaanka markaa ka joogtid way culusta laakiin markaa guda gashid way fududaan doontaa shay walba inta banaanka ka joogtid waxa uu kula yahay si kale ayuu kula yahay laakiin markaa guda gashid waxa uu kula noqon doonaa sidii si ka fudud ayuu kula noqon doonaa mar walba shayga gudagalkiisa iyo banaanka jooggiisa waxay kala yihiin waxyaabo kala fog aad iyo aad ayayna u kala fog yihiin noloshu sideeda waxay u baahan tahay gudagal ma u baahna ka fikir dheer iyo inaad noqotid qof in yidhaah sidee intee xaggee shayga gudagal markaas ayaad u baahan tahay qorshihiisa u dejintiisa iyo ku dabaqadiisa marka qorshaha dejinaysid waa inaad ku dabaqaysid markii lagu leeyahay ka fikir falanqay kadib saanyeel waa inaad ku dabaqaysid waa inaad ku guda jirtaa noloshaada falanqaynteeda dhabta ah waa gudagalka iyo horu socodka waxaan rajeynayaa inaad fahantay number 4 bilow yar samee tallaabooyin yar oo joogto ah samee waxay awood u yeeshaan inay inta badan hogaamiyaan ama ay awood u yeeshaan inay aas-aaska furaha nolosha ka dhigaan mid horumarsan haddii aad noqotid qof joogteeya waxyaabaha uu bilaabo waxaad noqon doontaa qof la yimaada isbeddel nololeed oo dhab ah inta badan dadku waxa ay ku jahwareeraan ama ay ku walaacaan sidii wax u bilaabi lahaayeen dad badan ayaa waxa ay yihiin kuwo ka walwalaya
siday u bilaabi lahaayeen iyo halka ay ka bilaabi lahaayeen. Ha ka welwelin, hana ka walaacin. Nafsadaada markaad niyad jabisid, waxaad noqon doontaa qof guuldareysta. Tusaale yar ayaan soo qaadan doonaa. Waxaad leedahay hadafyo waaweyn, sax? Hadafyadaas waaweyn kala qaybi. Waxaad tahay arday, waxaad doonaysaa inaad imtixaanka soo socda baastid. Waa inaad maadooyinka aad doonayso inaad ku baastid, waa inaad si fiican xoog u saartaa, waqti wanaagsanna waa inaad siidaa. Ama waxaad doonaysaa inaad noqotid shaqaalaha ugu wanaagsan shirkadaada, waa inaad ku dadaashaa, waa inaad waqtigaa shaqada tegaysa ilaalisaa, waa inaad steepka noloshaada, waa inaad si wanaagsan waqtiga waa inaad ugu dabaqdaa. Wax walbo yar waxay isku bedelaan wax weyn. Number 5, ujeedo inaad wax ka beddesho noloshaada. Fikradda ugu sarreysa marka aad guusha raacdo waa inaad hiigsataa inaad wax ka beddesho noloshaada iyo nolosha dadka kaleba. Waxaa muhiim ah inaad samaysid isbeddel. Waxaa jira 2 hab oo waaweyn oo aad nolosha wax kaga beddeli karto. Mid waa inaad naftaada wax ka beddesho, midda labaadna waa inaad nolosha dadka kugu hareeraysan wax ka beddesho. Guushu waxay timaadaa inaad ku noolaato nolol aad si dhab ah ugu bixisay wax walba oo aad ka shaqaysay sidii aad ku heli lahayd wanaagga ugu weyn ee naftaada iyo dadka kaleba. Isbeddelka noloshaadu waxay ku bilaabataa inaad ku xisaabiso xaaladaada nololeed ee hadda taagan. Waxaa jiro falanqayn meesha aad ku sugan tahay shucuur ahaan, jir ahaan iyo maskax ahaanba. Waxaa muhiim ah inaad fahamsan tahay xaaladda nololeed. Qofku marka uu sameynayo isbeddel, ugu horreyn waa inuu noloshiisa ku sameeyaa. Markii aad noloshaada isbeddel ku samaysid, ayaad beddeli kartaa nolosha dadka kugu hareeraysan. Tusaale ahaan, waxaad tahay qof ganacsade ah. Ganacsigaagu haddii uu noqdo mid guuleysta oo aad tahay qof ganacsigiisu guuleysto, dadku way kugu dayan doonaan, waana lagugu dayan doonaa. Qof walbana wuxuu rajeyn doonaa inuu sidaada oo kale noqdo. Dadkuna inta badan way kugu dayan doonaan, waxaadna ku guuleysan doontaa inaad dadka kugu hareeraysan oo adiga qaraabadaada ama ehelkaaga ama qoyskaaga aad u guuleysatid inaad noloshooda wax ka beddeshid. Xirfad ahaan, karti ahaan iyo caqli ahaan ama cilmi ahaan ama maal ahaanba waxaad u fududayn doontaa inaad ka caawisid inay isbeddel sameeyaan dhanka noloshooda ay si firfircoon u shaqeeyaan oo ay u qaadaan tallaabooyin si ay u gaaraan guushooda. Wax kasta oo aad samayso ku darso qiimo. Ka fikir sida riyadaada iyo fikradahaagu ay gacan uga geysan karaan xallinta dhibaatooyinka dadka kale. Halkaagu wuxuu noqon karaa fursad ganacsi oo wax ka beddeli karta noloshaada iyo kuwa kaleba. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, muuqaalkana la wadaag saaxiibadaada. Hada wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.